إلهينا وأنا ما أنت وايو رقمتين بان هيسا gurigan ka soo baxaysan koriimada oo bariisma yar oo daqiiqimad haro wax la leeyahay waxyaalo ma jirto oo keenay $100 baan loo keenay heede halkaanu ka bixinaa anaku hana laga gooyo xarkaana hana laga laabo Somaliland waxay jirtaa 31 sano koob iyo 30 sanana waxa ka hana qaaday nabad buuxda waxa ka hana qaaday degenaansho nabadeed gebi ahaanba deegaanada Somaliland haddaba xagee ay wax iska bedeli laayihiin maxaase ku dhacay horumarkii loo baahnaa in uu la jaanqaado nabadda Somaliland xukuumadii ka soo arriminayay koob iyo 30 sanadood oo 5 dawladood ay xilka isku wareejiyeen si nabada maxaase laga bartay waxyaabihii ku soo dhacay bulshada haddii ay tahay sixir bararka bulshada saameeyay ee xarkaha goostay wax soo saar la'aanta dhinac walba maxaase looga gamay in wax laga qabto marxaladaha qalafsan ee uu sababay sixir bararka haatan taagan 2022 Somaliland koob iyo 30 sanadood ee jirtayba waxay si buuxda ugu tiirsan tahay wax soo saarka dalalka shisheeye ay soo saareen ay u soo dhoofiyaan Somaliland taasna waxay keentay inuu marnaba kobci waayo dhaqaaluhu xadaaradaha waxa lagu xisaabiyaa inay gundhig u tahay nabadu oo ay halkaas ka bilaabmaan xadaarad walba oo adduunku gaaro iyo ilbaxnimo walba horumarku waa mid ku xidhan nabadana alle ayaa bixiya horumarkuna waxa uu ku jiraa qacmaha bini'aadamka Somaliland koob iyo 30 sano ay jirtay dhinaca badda khayraadka buuxa wax la soo saaray ma lahan sidoo kale shaqo la'aantu waa mid baahsan dhibaatooyinka asaasiga ah ee bulshada Somaliland haysta ee ugu horeysa abaarta iyo sixir bararka maanta xarkaha goostay ayaa ka mid ah waxyaabaha ugu daran ee saameeyay bulshada Somaliland haddaba maxaa loo baahan yahay mowduucan waa mid aan ku lafagurayno arrimahaasi oo dhan iyo waxyaabaha sababta u ah iyo halka wax laga qaban laayahay iyadoo uu dhulku yahay dhul nabada waa kuwan shacab ka mudaharaadaya dhibaatada leedhka iyo biyo la'aanta iyo cunno yarida ka taagan Somaliland haddaba siyaasiyiintu miyay iska indhatirayaan xaaladda qalafsan ee shacabka waxyaabaha asaasiga bulshada u ah sida waxyaabaha asaasiga ah ee nolosha horumarinta waxbarashada bilaashka ah caafimaadka tayada sare leh awoodda wax soo saarka khayraadka dhulka beeraha iyo badda kalluumaysiga iyo shaqo abuurka dhinac walba dhinacna waxba lagama qaban waana arrin dayacan oo ay bulshadu ka qatan tahay haddaba iyadoo ay jiraan duruufo nololeed oo qalafsan oo saameeyay nolosha shacabka sida abaaraha isbeddelka cimilada iyo dhibaato dadsamee ah dadka Somaliland waxay awood u yeesheen in ay doortaan golayaal deegaan golayaal baarlamaan ilaa madaxweyne haddaba maxay wax iskaga bedeli laayihiin xaaladda shacabkan codka bixiya ee ay la kulmayaan mawjadaha dhibaatooyinka waaweyn ee xaaladahan qalafsan inkastoo ay jiraan waxyaabo aan la iska indhatiri karin oo ka mid yahay aqoonsi la'aanta iyo wax soo saar la'aanta dalka gudihiisa oo ay jiraan in aynan dadku waxba qabsanaynin waxa arrinkan xaqiijinaya wasiir ka tirsan xukuumadda Somaliland madaxweyne waxaan doonayaa hadalka ku saabsan sicir bararka inaan 5 meelood aan u qaybiyo qaybta hore waxa weeye waa xaaladda sicir bararka ee waddanka maanta ka taagan talabaadna waxa weeye sicir bararka guud ahaan ka taagan caalamka saddexaadna waxa weeye sababaha keenay sicir bararka kaafraadna waxa weeye wixii dawladdu ay ka qabatay ka shanaadna waxa weeye waxa meel inooga yaalan u baahanahay inaan ka qabano haddaan ku bilaabo qodobka hore madaxweyne daraasadii u dambeysay ee la sameeyey bishii Abriil ay samaysay wasaaradda qorsheynta waxa ku cad in sicir bararku uu ahaa markaas isagoo sanadla ah marka la isku wada daro ascaarta oo dhan 6.9% sanadle haddii cuntada gooni loo qaado wuxuu ahaa 7.3 sanadle ayuu ahaa tamarta marka gooni loo qaado iyana waxay 10.5 bay ahayd madaxweyne haddii la sii fasiro nambaradaas oo loo qaado hal loo qaado kadbadii sonkorta ahayd 13 ahayd dollar imka waxay maraysaa 17 sidoo kale daqiiqdii ahayd 11 imka waxay maraysaa 17 shanta litir ee saliidda 9 ahaa hadda wuxuu marayaa 14 ascaartuna intaa way isbeddelaysaa xataa inta ay maanta joogto berita waxa laga yaabaa inay iska beddesho
kartoonka baastada ee $9 ahaa maanta waa $11 weey. taasina waxay keentay in ay dadka Somaliland dhibana u noqdaan dagaalka ka socda bariga Yurub maadaama ay ku tiirsan yihiin waxyaabaha dibadda looga soo dhoofiyo oo marka ay doonaan ganacsatadu ku jeesjeesan shacabka dhibaataysan. waxyaabahaas aasiga u ah nolosha ee saameeyay shacabka Soomaaliyeed waxaa ka mid ah abaaraha, sixir bararka oo xadhkaha goostay oo ay sabab u tahay wax soo saar la'aanta, isbeddelka cimilada oo wax walba murugiyay. haddaba haddii aan jaleecno dhinaca xadaaradaha caalamka iyo ilbaxnimada waxa gundhiga u ah waa xasiloonida deganaanshaha nabadda oo wax walba ay ku hana qaadaan. haddaba 31 sannadood maxaa la qabtay? laakiin Hargeysa waxa weli dhex daadsan fiilooyinka leedhka, wado xumo iyo biyo la'aan, waana isbeddel la'aanta taagan. waxaad moodaa inay wax walba ay istaageen oo lagu mashquulay wax aan dan ku jirin, iyo in lagu maramo doorasho sanad walba. taasna waxay keentay in bulshada laga mashquuliyo adeegii dadweyne ahayd in loo qabto ee bulshaduna u baahnaayeen. ummadaha caalamku waxay kula xisaabtamaan qofka ay dooranayaan in ay kula ballamaan hadafyo cadcad oo wax ku ool ah, sida la doortaa waxyaabaha u qorshaysan muddo xidhiidhkiisa uu xilka joogo. laakiin Somaliland waxaa lagula ballamaa hab qabaaylaysan oo aan faa'iido lahayn. taasna waxay keentay ama sahashay in qofka la doortay uunan xil iska saarin arrinkii bulshadu u igmatay ee loo baahnaa, sida waxyaabahaas aasiga nolosha u ah. wax walba oo laga baahan yahay inuu wax ka qabto mas'uulka la dooranayo. haddii ay tahay adeega dadweynaha, nabadda alla ayaa bixiya, horumarkuna waxa uu ku jiraa gacmaha bini'aadamka. dadkan masaakiinta ah haddii ay heli lahaayeen cunno wadani ah oo ay la soo bixi lahaayeen cunno iyo kalluumaysiga badda, laguma gumaysteen bariis iyo daqiiq dalo shisheeye looga soo dhoofiyey. aslanba siyaasiyiintu waa danaystayaal, waxayna ka faa'iidaystaan xaaladaha taagan si ay codka bulshada u hantaan, laakiin lama yaqaano waxay qabteen marka ay xilka qabtaan. muddo ka badan 31 sannadood ee ay Somaliland jirtay, waxaa ka soo arriminayay ilaa 5 dowladood ama 5 xukuumadood oo iskaga dambeeyay xilka. in badan oo bulshada Somaliland ka mid ah waxay la daalaadhacayaan dhibaatooyinka sixir barar iyo wax soo saar la'aan. ilaa iyo haddana ma jirto hadaf u degan dowladda oo ah in bulshada looga badbaadiyo xaaladaha masiibooyinkan qallafsan ee abaartu ugu horreyso iyo sixir bararkan xadhkaha goostay. bulshadan oo ah bulsho ku nool Somaliland, gaar ahaana magaalada Hargeysa, kadib markii lagu daalacay qiimaha leedhka, waxay dadkan ka mudaharaadayaan qiimaha leedhka ee lagu dalacay. dabcan waxaad ka dhadhansan kartaa hadalkooda in uu yahay mid qiiro leh oo markaasi ka turjumaya xaaladda guud ee taagan. oo maanta qiilooyna ayaan ooyna maanta waayo cunaqabatayn baan haysa. gurigaan ka soo baxay sankorimatan oo bariisma yar oo daqiiqima taalo wax lale wax yaala ma jirto oo keenay $100 baa naloo keenay. heedhe halkaanu ka bixinaa anaku hana laga gooyo. siyaasiyiinta Somaliland waxay isku dayaan inta badan in ay bulshada kiciyaan oo ay uga faa'iidaystaan sidii ay kursiga u hanan lahaayeen. taasna marnaba ma ahan wax qiimo leh. ka waran bulshada lagu dul tallaabsanayo ee la rabo in lagu dul tallaabso si kursiga loo fuulo. waa masiibo weyn oo ka taagan Somaliland, loona baahan yahay in sifooyin sharciya loo maro. dastuurka iyo xeerarka qaranku way qoran yihiin dhammaantood, wax walbana way qaabaysan yihiin, laakiin waxaan loogu dhaqmeenin sidii loo baahnaa ee ahayd in runta la isku dhaqo oo runta lagu dhaqmo oo meeraysiga laga baxo. maadaama uu waddanku yahay waddan xor ah, nabad ah, intaas oo dhanna nabad ku soo canamaalayay, bulshadiisuna ay tabaalaysan tahay oo weli dhibaatooyin dhaqaale iyo mawjadahaas dabiiciga ah la daalaadhacaya ee dhinac walba. haddaba iyadoo ay wax walba ay sidaas isku beddelayaan, codbixiyaha maxaa u qorshaysan? maxaase looga baahan yahay marka uu codkiisa dhiibanayo in uu ku hanto ama markaasi uu ku soo saaro cidda uu doonayo, maadaama awood u leeyahay cidda xukumaysa ee jaangoynaysa ilaa xildhibaan, baarlamaan, gole deegaan, gole wakiilo ama markaasi baarlamanka ama markaa guurtida ilaa tu madaxweyne uu isagu gacanta ku hayo oo uu yahay qofka markaasi inta uu ugu rido markaana kadib helaya dheefta ama ka shalaynaya wixii uu doortay. wax soo saarka dalalku
waa qaybta ugu muhiimsan ee dalka dhaqaalihiisa. Mar walba oo waxa dalka dibaddiisa lagu soo dhoofiyo uu yaraado oo uu bato waxyaabaha dalka gudihiisa laga soo saarayo ee uu dhoofinayo, hubaal dalkaasi waxa uu qaaday waddada horumarka. sidoo kale waxaan leenahay bad warkaasi ka mid ah badaha ugu kheyraadka badan leh dunidan. xeebta ugu dheer Afrika waxa leh dhul Soomaaliyeed ama dadka Soomaalida ayaa haysta. haddaba waxaa jira abaarooyin fara badan oo deegaanada Soomaalida oo dhan ka jira, waxaana muuqata in laga gaabinayo in dhinaca badda loo jahaysto oo cunnada lagala soo baxo kheyraadkaas kala duwan ee uu Alla ku manaystay ee bulshadii lahaydna ay ka qatan tahay. sanad walba waxa ka faa'iideysta kalluunka ilaa iyo Soomaaliya dalal shisheeye oo Shiinuhu ugu horeeyo. wargeyska Independent sida uu qoray, kumanaan kalluun ayuu sanad walba kala baxaa badda Soomaaliya Shiinuhu, kadibna wadamadooda iyo suuqyada Shiinaha lagu iibiyaa iyada oo la xadayo ama heshiis yar oo aan wax macno lahayn lagu heshiiyo. waa qiimo la'aanta ama waxa ay dawlad la'aantu ka dhigan tahay. haddii aad doonaysid inaad fahantid qiimaha dawlad la'aanta, tan tusaale u soo qaado inaysan awood u lahayn in dhulka wax lagala soo baxo, baddana wax lagala soo baxo. waa hubaal haddii wax la soo saaro laga maarmi karo 100% waxa dibadda laga soo dhoofiyo, oo ay ugu horeyso in cunnada marka koowaad laga maarmo. wixii quudka aad marinaysay haddii ay u xidhan yihiin dalal shisheeye maxaad u malayn lahayd? dagaalka ka socda bariga Yurub ee aan intaasoo kun oo kiiloomitir u jira dhulka Soomaalida, in maanta ay u dhiban yihiin dad Soomaaliyeed oo dhibaatada intaas lagu soo gaadhayso, hadday tahay mid shidaal, hadday tahay mid cunto iyo nooc walba noloshu tahay. haddaba saameynta noocaas oo kale ah waa inay ka dabaalato dawladdu. dadka waa in ay u fikiraan qaab muhiima marka ay wax dooranayaan, si ay u jaangooyaan dhaqaalaha dalkooda, horumarkooda iyo waxqabadka, iyo in dadku ay helaan cunno ku filan iyo nolol. siyaasiyiinta qaar Somaliland waxay ku dhiirigelinayaan bulshada in ay banaanka u soo baxaan ama la mudaharaado, kadibna dadku xabadda isku dhigaan. subxaanallah, wax aan aqliga geli karin. in xabadda la isku dhigo, ma cadow ayaa lala dagaalamayaa, ma shisheeye ayaa lala dagaalamayaa? haddii xabadda la isku dhigi karo oo ay dhalinyarada mustaqbalka ay tahay inay laabta u dhigtaan xabadda, yaase lala dagaalamayaa? xabadda se laabta loo dhiganayo yaa loogu dhiganayaa? ninka kursiga doonaya, ujeedada waa muhiim inaad ogaatid. ninka kursiga doonaya waxaa laga yaabaa haddii xaaladdu xumaato alla kama yeele in uu dalka iskaga baxo, in uu isagoo fudud oo boorsadiisa sita irboodka ka duulo, kadibna mushkulaadka adoo dabaalatid. dabcan taasi waa hubaal, waana waxa lagu yaqaana siyaasiyiinta. maahan qof inuu kula halgamo lagama yaabo. waxaa laga yaabaa 100% la hubaa in uu irboodka ayar ka dhoofo qofkaas xabadda afka ku geliyey. muhiimaddu waa nabadgelyada. nabadgelyadu waa shay qaaliya. maanta waxaa loogu doonista badan yahay adduunkan waa nabadda. nabaddaas ilaahay siiyey Somaliland, Allah u siyaadiyo ayaan leenahay. sidoo kalena marxaladaha taagan bulshadu wayna ka dabaalato, in ay dawladdu ka dabaalato oo wax soo saarka dalka badda la kordhiyo, si bulshadu ay u helaan cunno ku filan iyo nolol. bulshada Somaliland waxay u baahan tahay nolol, uma baahna in maanta mushkilad ammaan darro dhexdeeda laga abuuro. nabadda Allah u siyaadiyo. doorashada soo socota ee la rabo inay ka dhacdo Somaliland, tan ururada, tan madaxtooyada, dhammaantood dabcan horta waa doorashooyin isku sidkan oo si aad iskugu dhow. marka la eego 13 November ilaa bisha 12 ee sanadkan ee December inay doorashada ururadu dhacdo, inkasta oo laga soo hormarin karo. umuurahaas oo dhan Ilaahay khayr ha ku dhameeyo. siyaasiyiintu waxaa loo baahan yahay in aysan bulshada uga faa'iideysan dhinaca khaldan. in siyaasiga raba in uu ummadda wax u qabto uu horta halkaa iska dhigo inuu dhaqaale dawladda ka sameeyo, inuu halkaa iska dhigo inuu qaab qabaa'ileysan wax u raadiyo, in uu wax u raadiyo doonis guud oo bulshada ku saabsan. kaas ayayna bulshadu raadin doontaa. qof walba oo ka mida xildhibaan ahaado, ku ka tirsan xisbi ama xubin ka ahaado, noocuu doonaba ahaado, bulshadu waxay u arki doonaan in uu jaangooyo siyaasadooda qiimaha uu leeyahay. qof walba qiimaha uu leeyahay ayaa lagula xisaabtami doonaa, waana ka dadku ay raadinayaan in uu wax walba kala fahmayo ama uu kala arkayo ama uu u muuqdo mid danta guud ee bulshada ka arriminaya. Ilaahay wax walba khayr ha ku dhameeyo iyo nabad iyo barwaaqo.
waxyaabaha ugu mudan ee tahay in la ammaano waxaa ka mid ah dekeda berbera in la dhammaystiro dekeda caalamiga ee berbera waa muhiim iyo iriboodkeedaba waxayna ka mid tahay waxyaabaha aas-aasiga u ah horumarka dhaqaale ee dal leeyahay waa muhiim in ay dad badan oo Soomaaliyeed ka shaqo gali karaan berbera si ay uga shaqaystaanna ay u baahan yihiin in dekeda la dhiso dabcan way dhisan tahay waana la dhammaystiray waana haatan ta shaqaynaysa oo ay dhalinyaro fara badan oo jaamacadaha kasoo baxeen ka shaqaynayaan waxyaabaha xusida mudan sidoo kale waxaa ka mid ah barnaamijka shaqo qaran oo kumanaan dhalinyaro ah ay sanad walba ka qayb qaataan kuwaas oo qaarkood ciidamada lagu daro sidoo kalena qaar kale ay ka mid noqdaan wasaaradaha iyo qaybaha kale ee dowladda haddaba waxyaabaha mushkulaadka ugu waaweyn waxaa ka mid ah dabcan aqoonsi la-aantu kama maqna Somaliland lama aqoonsana laakiin muhiimaddu waa in siyaasad jaangoysan laga yeesho aqoonsi raadinta iyo waxa bulshada loo soo gudbinayo in bulshada lagu maaweeliyo yacni dal hebel ayaan xiriir la yeelanay waxaan ayaan qabanay yacni in tallaabooyin yar oo bulshada la tuso muhiimaddu waa in gudaha dhaqaalahaan iyo nolosha bulshada laga soo dhisaa waana waxyaabaha ugu muhiimsan ee ay tahay in mas'uul walba oo xil qabanayo uu xil iska saaro in uu u taro ummadda uusan yacni afgabaadtii uusan bulshada la soo hor fadhiisan ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu raxmaadkiisa inoo shubo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu